maarayaha dekedaha Soomaaliland Siciid Xasan Cabdullaahi ayaa maanta kormeer ku soo maray qaybaha kala duwan ee dekeda Berbera. Maarayaha ayaa sidoo kale kormeer ku soo maray dekeda cusub ee 400 mitir ah ee shirkadda DP World maalgelinayso. Maarayaha ayaa sheegay inuu yimid qalabkii ugu badnaa ee dekeda cusub lagu dhisay. Maanta waxaan joognaa saadkii cusub ee dekeda cusub ee 400 mitir laga dhigay. Sidaad ku arkayseen markabkii siday qalabkii ugu muhiimsanaa ee dekeda Baaliska dabada xagan dambana ku aragtaan waa la dejiyay shaqada intii muhiimsaneed ee qaybta baddu imikay bilaamaysaa sida noocaada ah bishiiba waxa weeye kormeer ayaan ku soo marnaa sida shaqadu u socoto madaxda hawsha fulinaysay ee injineerada ahana warbixin bay nooga bixiyaan waxa kale oo isaguna halkan nala jooga injineerkii dekeda horeba dhisay ee qayb ka ahaa injineer Cabdiraxmaan oo isaguna had iyo jeer monitorinka iyo hawluhu soo socdaan ku daba jira maantana waxaan insha Allah warbixinta kaga dhageysanay injineerada halka ay dekedu marayso alxamdulillah rabbil caalamiin dekeda sidaan horeba u sheegay waqtigii iska jawalkii caadiga ahaa ayay ku dhamaanaysaa. Maariya Siciid ayaa shahaado sharaf guddoonsiiyay shirkadda hirgelisay kamarada casriga kor loogu qaaday ammaanka dekeda Berbera. Waxa dekeda hadda ku xidhan 95 kamaradood oo 24 saacadood ba shaqeynaya. Waxaan u sameynay control room 8 qof ayaa fadhiya oo shiftiyay isu bedelaya 24 saacadood ba waa la monitor gareynaya. Waxaan dhammaan dadweynaha sharafta leh ee ka shaqeeya dekeda iyo inta u soo shaqo tagtaba aan ogeysiinaya alxamdulillah rabbil caalamiin systemka security-gu inoogu rakiban yahay kaasoo xitaa hadduu leedku bakhtiisan yahay ay shaqeynayso. waxa kale oo gate 5 iyo gate 10 iyo 6 aan intaba ku rakibnay security camerada iyadoo akhriyaysa number plate-ka gaari kasta oo dhaafan number plate-kiisu waa registeraysan yahay. System-kan aan ku rakibnay dekedaha Africa waa kii koowaad runtii system noocaas ah uu ku rakiban yahay. Wa Khadar Maxamuud Axmed Khadar Xafo telefishinka caalamiga ee Kalsan magaala xeebada Berbera.